dowladda hoose ee degmada Oodweyne ayaa maanta hirgelisay waddo 1 kiiloomitir oo laami ah taasi oo ka bilaabmaysa kantaroolka bari ee magaalada waxaana wadadan ka mid ah mashaariicda ay dowladda hoose fuliso isla markaana laga maalgeliyo mashruuca horumarinta dowladaha hoose loo yaqaan GBLG-ga ugu horeyntii faahfaahin ka bixiyay xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Oodweyne Maxamed Faarax Indhaweyne iyo waliba qaar ka mid ah injineerada iyagu gacanta ku haya wadadaasi maanta halkan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa hay'adda GBLG-ga iyo hay'adaha kale ee naga caawiyay wadadan iyo dowladda Soomaaliland iyadana qaybteeda qaadatay wadadan oo fayskan koobaad uu ku dhamaanayo laga yaabo 2 maalmood kadib in wadada toos loo maro iyadoo muddo badan ay dhibaato ka taagnayd oo dadweynaha degmada Oodweyne ay dhib badan ka soo gaadhay insha Allah waxa laga bixi doonaa 2 cisho kadib biyihii 30 kun nagu gaaray foostada waxaan filaynaa inay 15 noo noqon doonaan markaas aad iyo aad dadweynahana waxaan uga codsanaynaa inay ilaaliyaan wasaaradda howlaha guud iyo hay'adda wadooyinka aniga ku hadlaya kulay magacayga iyo magaca hay'adda aylo iyo hay'adda wadooyinka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta mashruuca waa mashruuci dhamaystirka wadada Oodweyne ee lagu sii dareeyay intii hore dhisnayd taasoo maanta shaqadeedu tahay in la qabto saaridda daamurka shaqadii shayga maanta bilaabantay insha Allah taala waxaan rajaynayaa inay dhamaystiranto phase-ka koobaad maanta أنا halkan u taaganahay inaynu phase-kii hore wadada dhamayno 1 kiiloomitir ay hay'adda aylo iyo degmada iska kaashanayeen xildhibaan Yuusuf Aw Maxamed Dubad iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Daadmareed ahna kusimaha gudoomiyaha injineer Maxamed Cabdullaahi Cilmi oo ugu dambeyntii hadalka isaga daba maray ayaa waxay yiraahdeen waxaanu u taaganahay oo ilaa shalayta maanta aan ku hawlanahay hadaan golaha deegaanka iyo maamulka gobolkuba wadada sidii looga shaqeyn lahaa ee aan uga caawin lahay waxqabadka ka socda waxqabadkaas oo 1 kiiloomitir oo markii hore carratuusiisu taalay ayaa la saarayaa daamir inta ka hadhayna ee caqabada ah ee seeto iyo inta la halmaashana waxaanu ku rajo weynaa insha Allah inaanu dhawaan ayadana cadii la yiraahdo dawladda annagoo la kaashanayna hay'adaha samafalka ah iyo GBLG-gaba in laga qaban doono ayadana intaas wax la saari doono dhibaatada saameysay gobolka ee wada xidhida ah intaan joognaa waa 1 kiiloomitir ee wadada Oodweyne ee u baxda xagga magaalada Burco oo la saarayo 1 kiiloomitir daamur mashruucaas iska kaashadeen oo 3 geesood ah oo GBLG-ga hay'adaha GBLG-ga iyo dawladda dhexe iyo dawladda hoose mashruucaasi waa mashruuc aad loogu reeyay waayo wadooyinku waa halbowlaha magaalanimo ama magaaleyn wadadana waxaan rajaynaynaa inay wax badan ka qayb qaadan doonto muddooyinkii ay shaqadu ka socotayba magaalada lafteedu aad bay u dareentay wada xumada uu leeyahay magaalada gudaheeda ama magaalada soo gala wadooyinka soo gala Muuse Salabaan Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Oodweyne